ciidamada ilaalada xeebaha ee Somaliland ayaa maanta loo qaybiyay gaadiidkii ay ku howlgali lahaayeen taasoo ka timi caawimo dawladda Ingiriiska u fidiyay dhanka ciidamada Somaliland gaar ahaan arrimaha ilaalada xeebaha. Tobiya ka tirsan ciidamada ilaalada xeebaha oo maanta loo qaybiyay agabka iyo gaadiidka ay dawladda Ingiriiska ku caawisay ayaa munaasabad loogu sameeyay xarunta gobolka Saaxil ee Berbera taasoo ay ka soo qayb galeen saraakiisha sarsare ee ciidamada badda oo horkacayay Admiral Axmed Cismaan Cabdi kaasi oo sharaf kaga qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada ilaalada xeebaha ee Somaliland. Admiral Axmed Cismaan Cabdi oo ka hadlayay arrintan ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa ciidanka gaadiidka aan ugu qaybinay sidaas ay ku fishay sidaas ay lagu hawlgelaya waxaan sheegaynaa in aanu hawlgal cusub oo ka ballaaran kii hore ee aan ku jiray aanu bilownay imka ciidan ahaan waxa aanu ka dhigaynaa oo aanu muujinaynaa oo tusaynaa maxaan ku raahdaa jaararka iyaga ishubaynaya maxaan ku raahdaa isqalabaynaya maxaan ku raahdaa shakiga weyn mandaqada ka abuuraya inaan diyaar nahay oo horta tusaynaa waxa kale oo aanu baaq digniin u dirayna nimanka meydha burcad badeeda oo bariyahan dambe doonaya in hunguri weyn ka hayo in ay biyaha iyaga ay ka ugaarsadaan waxaan leenahay maya suuro geli mayso. ciidamada ilaalada xeebaha Somaliland iyagu dhawaanahan baa heegan ugu jiray sidii ay uga ilaalin lahaayeen xeebaha Somaliland arrimaha argagixisada iyo burcadbadeeda ayaa qalabkan iyo agabkan gaadiidka maanta la siiyay wax weyn ka tari doona difaaca iyo ilaalada ay ugu jiraan xeebaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. Isla goobtaasi ay ciidamada ilaalada xeebaha ee Somaliland ay ku soo bandhigeen dhoolatusyo ay ku muujinayaan awoodooda iyo kartidooda sida ay mar walba diyaar ugu yihiin inay ka difaacaan qaranka Somaliland wax kasta oo agardaamo oo kaga imanaya dhanka badda iyagoo tilmaamay inay awood u leeyihiin in guud ahaan xeebaha Somaliland ay ka ilaaliyaan cid kasta oo ku soo xadgudubta. ugu dambeyntii ciidamada ilaalada xeebaha Somaliland ayaa caawimadan ay dawladda Ingiriiska u fidisay ay kor sii qaadi doontaa tayadii iyo dadaalkii ay ugu jireen sidii ay xeebaha Somaliland uga ilaalin lahaayeen burcadbadeeda maadaama ay Somaliland ku taalo gobol ka jira qas gaar ahaan Soomaaliya ay ka ukan tahay kooxaha burcadbadeeda ee dunida ugu